شنطة شيء مرة واحد كبنا ما يسال شنطة شيء لا مرة واحد كبنا ما لا أنا في واحد كل شيء عنه معلمه محمد إبراهيم معلمه ما مغلب ولا معانا على آله وصحبه وسلم waxaa maanta meeshan ku aragnay dhibaato aad iyo aad u weyn oo shacab Soomaaliyeed ku dhamaadeen ilaa muddo waxaan arkay 10 ilaa 10 qofood camal arkay waxaan hortaaganahay anaga meeshan waxaan maamulayaasha xawla baariyo waxaan gaaray dhibkan iyo dhibaatadan anagoo u soo baxnay inaan shaqeysano wax qabsano ilmeen reerkana biilano ayaa dhibaatadan ilaahay noola kulmay marka alxamdulillah ilaahay dadkiisa wax yeelan Allah soo hanuuniyo wax kale aan dhigi karna malaan naga shacab Soomaaliyeed baan nahnay waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu ilaahay soo hanuuniyo bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ka tirsan hay'adda Amiin Ambulance oo la yiraahdo magacayga Abduqaadir Cabdullaahi Cabdi oo ka tirsan darawaliinta hay'adda Amiin Ambulance u soo gurmaday meesha dhibka ka dhacay ما شاء الله الحمد لله إنكستو خسارة وإسكب بدينا إلا حد أو وحي جار ماشي وكون نقدين إنكستو يهين أنت عرقنا هيدا أمين أمبلاس عرقت حقيقي كرتها سديت قفوا دمشقة أو عرقتي يشان يتوقف قفوا ضاوعة أنت ماشي وعرقنا وسبتالله خارج كل دقون لك الجي إنكستو حد أو ترى جود أنا وذهينه وأنت عرقنا شيء كستو كسي بدين هنا على الرادين هنا إلا حد نوكل جنا إن شاء الله وهوا وسوق بجبدنا إن شاء الله waxaan joognaa maanta hadda kaawagoday sida aragtaan oo maanta ay ka dhacday masiibo sida warku nagu soo gaaray goor hadda xafiiska aan ka shaqeynaynay oo 12 duhurnimo ay ahayd ayaa waxa yimid gaarigaas oo halkaan shil ku galay ciidamada amniga oo meesha joogana ay joojiyeen si ay u baaraan iyagoo baaritaankii gudihiisa ku jira oo qofkii darawalka gaariga waday oo gaariga uu waday marna gadaal u wado marna horay u wado dadkii meesha marayna jiirsiinayo ayay ka shakiyeen way u yimaadeen marala markii ay darawalkii ka soo dejiyeen oo ay bannaanka ku wareysanayaan oo ciidamadii halkan ku qoraa isgoyska ee la shaqeynaya degmada iyagoo wareysigii ku jira oo isagay wareysanaya ayaa gaarigii uu watay uu ka soo degay oo isla barti ku qarxay waana halkan hadda idin muuqanaysa ilaa hadda annagoo barta taagan waxaan xaqiijinay 5 qofood oo meyd ah iyo 7 qofood oo dhaawac ah intaas ayaa hadda hadalku maraya nasiib wanaag ciidamada waxay gacanta ku hayaan ninkii qaraxi waday oo gaarigii qarxay darawalka ka ahaa iyaga oo bannaanka ku wareysanaya gacanta ku haya ayuuna gaarigii qarxay waxaana ku wareejinay ciidamada amniga isla ciidankii ayaa kaxeeyay saldhigga degmada wadajir ayaana la geeyay ninkii gaariga waday qaraxina hadda ilaa hadda warkaan hayno dhimashadu waa 5 7 qofoodna waa dhaawac